barakacayaashani ku jira kaan badbaada ee magaalada Cadaada ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo oo soo food saartay waxayna sheegeen inaysan heli karin cunno iyo hoy maadaama xilliga habeenkii ay u nugul yihiin qabowga sidoo kale tan maalintii aysan jirin wax ay ka galaan qorraxda qaar ka mid ah barakacayaashan oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in xaaladoodu ay aad u leedahay isla markaana aysan jirin cid soo caawisay hase yeeshee ay la ildaran yihiin xaalad nolol xumo marka habeen cabsan hataa banaan u bixayno insa degdegana lagu caawiyo gurina loo dhiso raashin aan helno daryeel aan helno daawo helno guryo aan helno suulo helno alxamdulilah baa dad soo barakacayana oo meesha imaaday waxaan meesha waxba ku hasanan alxamdulilah baa waxaan dowladda dadka soo socda inay maanta wax ay noo qabtaan aan doonayna abuda ka soo barakacay baan anigu alxamdulilah rabbil ciyaalka imaatad wali waxaan inta waxaan way kala baabsan yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay mahadiis lagama dheerado waa gaajaysanna caaw hadii wax ku ciyaal yar ba baas noo qada qaar ugu wax soo wayna habeenkii wax soo waa la qada ba wax gool ku jifanaan ma haysan alxamdulilah guri ku hoyna ma haysan waa u jeedna quraxda bagooda saxna inayna la daryeelo u baahanaa ilaahay aan digis nologa wax ilaahay noo soo dhiibin nolosii waa u dar oo baahan nan ii shaqay wiil ii shaqay ma qabo wiil ii shaqay laba gabdhoodaan qabaa labadii gabdhood waa la kala qabaa qaxoota qabto maxay u tari waa u jeedaa meesha ku nool yihiin geed hoostiisa qof bina aadan kuma noolaan karo hooy male harsi male cunno male meeshaasaan ku noolnahay aadan cabdinuur waxa uu ka mid yahay barakacayaasha ku jira kaamkan hase yeeshee isaga waxa uu sii dheer xanuun uu la jiifay ilaa 7 sano wuxuuna tilmaamay in xanuunka ka sokow uusan jirin wax uu ku noolaado isla markaana uu leeyahay laba xaas anigu magacayga waxaa liraa aadan cabdinuur waxaan ka soo barakacay waaga gobolka Bakool magaaladan meeshan qaxootiga aan isku jooga 7 sano ayaa xanuunsanay sokor baa igu dhacday meeshaan aan jiifaa saan ku jooga Allah og marka sokortii baa igu xanuunsatay sokortii baa igu dhacday wax daawo ah iyo wax oo maartay oo nafaqa oo meesha mari cidisiisa mesela cid i keentay ma garanayo ma arag meesha waxa la jiifaa tabardaro xanuun lugaha waa eber coryaan baa meel waa xanuun coryaan gaajo inta hadu beri waxaan biyaha tuubada hata biyaha ma cabi kara magaalo kasta oo ku taala dhulkeena Soomaaliya ayaa waxaa ku nool dad xaaladooda ay liidato hase yeeshee barakacayaashan ku jira kaamka badbaada ayaa tilmaamay in aysan jirin goob ay u shaqo tagaan isla markaana aysan jirin cid caawisa maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado